magaalada muqdisho waxaa xalay mar kale ka qabsoomay kulan looga hadlayay amniga caasimada waxaana ka qayb galay mas'uuliyiinta ugu sareysa maamulka gobolka Banaadir saraakiil ka tirsan ciidanka booliska. kulanku uu shir gudoominayay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yiriso ayaa waxaa ka qayb galay gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda Maxamed Cabdullaahi Tuulax, taliyaha ciidanka booliska iyo saraakiil kale. kulanka ayaa waxaa diiradda lagu saarayay dardargelinta amniga magaalada muqdisho iyadoo si weyn la iskula gorfeeyay sidii loo xoojin lahaa sugidda amniga magaalada muqdisho oo mararka qaar ay ka dhacaan falal amni darro. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Yiriso ayaa mas'uuliyiinta hay'adaha amniga faray in la xoojiyo sugidda amniga isla markaana ay ciidamada kordhiyaan howlgallada. booliiskana waxa lagu yaqaan waxay tahay badbaadada shacabka iyo horumarkooda iyo inay ka hortagaan wax kasta oo qatari u keeni karto. sidaas daraadeed shacabka ayagana waxaa laga rabaa inay kaalintooda ka qaataan. muddooyinkii u dambeeyay waxaa magaalada muqdisho ka dhacayay kulamo looga hadlayay dhinaca amniga ha yeeshee mararka qaar ay dhacaan falal liddi ku ah amniga iyo qaraxyo khasaare badan geysta.